yang ter Aku sii furayna fooda la inuu jiro la qalqaale maya u ooyi karaan adna waad xanaaq We come from a third world country. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada janalkeena kobcinta garaadka caruurta walaashiin raxme xuseen maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ee leedahay technology-ga waxyaabo badan oo wanaagsan uu nagu soo kordhiyo alxamdulilah laakiin dhibaato ku haya caruurteen marka 7 hadaa dhamaanto dhan waan ka hadlayaa wax la soo koobi kara ma dhibaatada nagu hayo laakiin 7 wax aan insha Allah aan ka wada hadlayno oo caruurteena technology-ga dhibaatada oo ku hayo oo TV-ga tirada badan leh screen-ka tirada badan leh ee caruurta ay fadhiyaan oo ku hayaan kan koowaad waa caafimaadka caruurteena caafimaadkooda waayo cunugii markuu ciyaaro maskaxdiisa isticmaalo oo ordo oo alaalaabe ku ciyaaro ama cunug weyn yahay oo ciyaaro taas waxay korinaysaa maskaxdiisa iyo jirkiisa marka hadii oo waqtigaas oo la rabo caruurta inay carcararaan oo TV kor fadhiyo wax fiirsi oo kor fadhiyo caafimaadkiisa cunuga caafimaadkooda caruurta ayaa ku dhacayso labaad oo iyadana muhiim ah caruurta loo badiyo inay wax fiirsiga badsadaan hurdo ku filan ma helaan hurdadana waa muhiim cunuga inuu helo hurdo ku filan waayo hurdada ku filan waxay korinaysaa maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa tan waa caafimaadka leedana cunuga doo hurdo ku filan helin wax ma bara karo si la rabo wax ma bara karo waa maskaxdiisa ma karo midda saddexaad oo iyadana dhibaato mid kasta waa dhibaato la kulli waa dhibaato mid kala ka dar marka midda saddexaad iyadana waxa weeye cunuga la hadlayso wuu ku ag fadhiyaa xataa door wax weey u fiirsan waa la hadlaysaa ma ku jawaabaa madax adag madax adeeg ma cunugan wuu ku ag jawaabaa laakiin maskaxdiisa way maqantaa marka waxa uu ku fiirsanay wixii isdaba ururday waxa soo fiirsanay oo uu ka fikirayo marka cunugii asoo ku maqlaayo hadana ma ku jawaabaa midda afraad inaa waxa isku daya soo koobo sida u xifdisiin oone ka ilaalisiin caruurta waa hadaa dhawaa sharaxa inaa iloodina ka baqa marka soo kooba sharaxaadana idin ku darsado insha Allah waxyaabo kala dhibaatada kalan oo ilmahaada ka aragtid wixii ka aragtid meeshii aragtid insha Allah kaamanka hoos igu soo qor mid afraad dhahe waxa cunugii wax ka soo dhumaan hadda buugiis haysto waa ka dhum hadda maxaa dhigi jira alaabtiis haysto waa ka dhum hadda shaatiga halka dhiganay ama xijaabka halka dhig waa ka dhumtay maanta 12 wixiisi waa ka dhumaayeen waxaan ugu dhacaana kan maxaa wax kasta ka dhumaayaan maxaa u keenay technology-ga faraha badan la u keenay kanaad oo iyadana noo keento technology dhibaatada nagu hayso waxa weeye cunugii ma fariisanayo waa iska xarara xaga ku bood waa yaabanahay soma war caruurtan daalayna xagee ka imaadeen 12 iska xarara oo fariisanayn intii looga talagalay ilmaha waa cunug yar haduu isku rawaad laakiin inta looga talagalay in ka badan carraan way ordayaan ma fariistaan ma nastaan marka iyadana waxa u keenayso wax fiirsigan tirada badan lahayd u keenaysa midda lixaad iyadana waxa weeye waa dagaal dhamaaneen maroo la dirraan la isdirraan caruurta iyo ka dhaxdoodii mare waxay ka fiirsadaan meeshii si ay isku dilay ka fiirsadaan isku baroweynayaan mare ardayda galaaska isla dhiganayaan la dirraan dagaal iyadana waxa u keeni karo technology iyo fiirsigan tirada badan la u keenay midda toddobaad oo aad ani ii xanuujiso oo arko oo marwa maalin walba la dheel garayo oo xanuun oo
fikir igu rido waxaa weeye cunugii da'diisii iyo hadalkiisii ma islaha. taas waxaa ugu jira cunuga waa caafimaad qabaa, maskaxiin uu caafimaad qabaa, cunug xanuunsan ma aha. laakiin cunugii iyo da'diisii ma islaha. su-aashaa weydiiso kaagama jawaabi karo. luuqaduu ku hadlaayo wuxuu iska soo qad cunugii 7 jir camalo, laakiin luuqadiisa waxay la egtahay 1 sano iyo bar camal. 1 sano iyo bar camal uu hadlaa, si loo fahmi karin uu hadlaa. haye haddii taas uu kasoo gud ama cunugii uu rabo inuu ku weydiisto erayaal oo isku xiran oo si caadi oo da'diisii waqti carruurtaasi u hadlaa mu hadli karo. dhibaato weyn oo la soo koobi karin ayay leedahay technology iyo wax fiirsido. inta isdheheen carruurta ku mashquulay ha kaaga mashquulaan, ha kaa fariistaan, dhibaato ka weyn ayay ka dhaxlayaan oo halka lagu soo koobi karin. marka cunugaadi oo 7 sano jiro, 8 sano jiro, 5 sano jiro oo la rabo si qof weyn camal sida da'diisa u hadlaan la rabin oo hadli karin, waa dhibaato. oo haddana oo xanuun kale u haynin, laakiin oo u keentay bis wax fiirsigan tirada badan oo u keentay. marka insha Allah waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno sida carruurteena ku fiirsanan ay fiirsiga dhan waqtigay fiirsan lahaayeen anaka waqti gelin. marka maxaa la sameyn karaa? waxaa sameynaysaa hal maalin horta intaad soo carartid cunuga ilmihii technology ma ka wada jiri kartid. waa ina ugu yaraan bil shaqo culus a gashaa saa ugu jari lahayd wax fiirsiga ee wixii ay iloobaan. marka inaa cunugaado oo u ogolaanin 30 daqiiqo wax ka badan inuu wax fiirsado. haye wuxuu fiirsanaane wanaag wax ay ka baranayaan. ay fiirsanayaan kartoon maanta oo isdaba carra isdila haday fiirsadaan dilkii saasay ku barteen macalinka la meesha fadhiyo. laakiin wax ka baranayaan oo education ku jiro oo maskaxdooda korinayo waa inaa u ogolaataa. saas idoo tahay haddana nus saac ka hor cunugaada ha u ogolaanin. waana inaa ogaataa cunugaada haddaa rabtay maskaxiin kuu koro, jir ahaan kuu koro, caafimaadkiisa maasha Allah kuu noqdo, waa in screenka intaa ka yarey kartaa ka yareysaa. marka insha Allah waa idin salaamay. waan ogaa videoyaasha idinku soo yareeyaa. waa dadaala insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.